waxaan galay ciyaarta geerida si aan daynteyda u gudo. waxaan u dhexeeyaa nolol iyo geeri. waxaana kugu filan in mar kaliya lagu khiyaamo. balse waxaan tijaabinayaa nasiibkayga. filim Kaichi It's back. Hoos ka see. filimku wuxuu ku bilaabmayaa wiil lagu magacaabo Kaichi kaasoo ka shaqeeya dukaan yar kaasoo aan raalli ku hayn noloshiisa. maalin maalmaha ka mid ah isagoo gurigiisa ku socda oo xanaaqsan ayaa waxa uu jabiyey mid ka mid ah baabuurta qaaliga. kadib waxaa eryaday kuwii lahaa waanay qabteen. intaa kadib waxaa soo muuqatay maamuladoodii waxaanay u sheegtay inay magaciisa garanayso. waxaanay u sheegtay in lagu leeyahay lacag aada u badan taasoo ku dhacay muddo 2 sano ah oo ahaa heshiisuu damaanad u qaaday faa'iidada saaxiibkii. laakiin waa la waayay saaxiibkii, shilinna muu bixin, isaguna uu noqday ka mas-uuliyadda bixinta iskale. waxauu marwadii u sheegay in aanu lacagtiisa gudi karin, waxaanay u sheegtay inay u hayso xal quriyaataa si uu bixiyo, taasoo ah inay jirto doon tegaysa 4 saacadood gudahood. waxaanay raadinaysaa ciyaarta kala soo qayb gasha. haddii uu nasiib leeyahay oo uu ku guulaysto ciyaarta waxuu ka takhalusi doonaa deymihiisa oo dhan. waa uu ku raacay Kaichi waxaanu aaday doontii. markii uu galay doontii waxa uu la yaabay markii uu arkay kasoo qaybgalayaal tiro badan. ninkan ayaa soo koray masraxa waxaanu u sheegay inuu yahay maamulaha ciyaarta. waxaanu uga warramay qaacidooyinka ciyaarta iyo in qof kastaaba heli doono 3 xidigood, xidig kastaana ay u dhiganto $1,000,000. kadib waxuu qof kasta siiyey 12 kaadh. kaadhadhkuna waxay leeyihiin calaamado kala ah dhagax, maqas iyo waraaq. waana iskula ciyaarayaan iyagoo adeegsanaya kaadhadhka. marka uu qof guuldaraysto waxauu siinayaa ka guulaystay xidig. gabagabada kama dambaysta ciyaartuna waa 30 daqiiqo. markuu wakhtigu dhammaadana waa in qof kasta haysan wax warqada. taa beddelkeedana waa inuu haystaa 3 xidigood ama wax ka badan. markii ciyaartii bilaabmatay mid ka mid ah ciyaaryahanada ayaa wuxuu u tegay Kaichi waxaanu u sheegay inuu ciyaarta fikrad ka haysto. hadday adeegsadaanna ay ka takhalusayaan dhammaan kaadhadhka, mid kastaana uu helay 3 xidigood. waxaana isku raaceen in kaadhadhka la dhigayo miiska si istaba jooga. hadday isku mid noqdaanna ay ka takhalusayaan dhammaan kaadhadhka. waa uu ku farxay Kaichi waanu ku waafaqay ciyaarta. laakiin ninkii waa uu khiyaameeyey waxaanu ka qaatay 2 xidigood. waa uu xanaaqay Kaichi, waa uu qaraacay xataa uu dhiiggiisii ku duulay warqadiisii. waxa uu Kaichi doonay in warqadiisii u dambeysay uu ku horfuro dadka hortooda. kadib khaayinkii waxa uu ku qanciyey dadkii inay warqadahooda isku qasaan. kadib waxa uu Kaichi siiyey kaadhkii lahaa dhiiggiisa. kaadhku waxay calaamadiisu ahayd maqas. waxa uu ninkii isku dayey inuu khiyaameeyo oo uu ciyaarta ku qanciyo, laakiin waa uu diiday ugu horreyntii. laakiin waa uu ku waafaqay bisharad inuu la ciyaarayo hal mar oo la kala helayo 3 xidigood. ninku waxauu isku hubay inuu ka guulaysanayo waanu ku raacay. waxaanu ninkii dhigay warqadiisii u khaaska ahayd taasoo calaamadeedu ahayd dhagax. markii uu Kaichi dhigay warqadiisii khaaska ahayd waxaa caddaatay inay calaamadeedu tahay waraaq. waanu ka guulaystay waxaanu ka qaatay 3 xidigood. waxaa caddaatay in Kaichi waraaqdiisa u beddelay mid ka mid ah ciyaaryahanada. waanu la ciyaaray si ugu caawiyo inuu ka takhaluso kaadhadhka u hadhay. waxaana ilaaladii u qaadeen ninkii khaayinka ahaa qol madow. maruu wakhtigu afka u saarnaa gebagabo waxay bilaabeen Kaichi iyo saaxiibkiisa cusbaa in ay uga takhalusaan waraaqaha
dariiqa isleekisiinta mid kastaana waxa uu helay 3 xidigood. laakiin markii waqtigu dhammaaday waxa uu ninkii gaboobay ogaaday inuu haysto kaadh dheeraad ah taasoo ku qarsoonayd cumamadiisa, waxaana loo kaxeeyey qol madow. laakiin Kaichi ayaa diiday inuu joojiyo, laakiin waa laga dabageeyey qolkii madooba. markii ay wada galeen waxay qaateen kuwii guuldaraystay, kadib waxay duldhigeen bridge soo laadlaada, waxaanay ballantu tahay ka gaadho bardhamaadka uu helayo lacag lagu qiyaasayo 10 malaayiin oo dollar. dhammaantoodna way baqayeen. Kaichi ayaa ka qayb galay, waxaana ku dhiirigeliyey inay iyana ka qayb galaan, waana ka qayb galeen. bridge-kii ayay mid u fuuleen. markii ay soo gaadheen bartamihii dariiqa, dabaylihii ayaa ku darnaaday, waxaanay u daateen midna kuma guulaysan inay gaadhaan ilaa Kaichi iyo ciyaaryahan kale oo la dhaho Kasha. mar ay ku faraxsanaayeen soo gaadhidooda, waxau Kasha isku dayey inuu furo albaabka, laakiin intii aanu furin Kasha waxau dareemay qalad, waxaanu isku dayey inuu joojiyo, laakiin albaabkii ayaa furmay, hawadii ayaana hoos u tuurtay. sidaas ayuu Kaichi ku guulaystay inuu keligii soo gaadho. maamulihii guud ee ciyaarta ayaa soo degay, waxaana ogaaday in Kaichi la khiyaameeyey oo aanu ku guulaysanayn lacagta abaalmarinta. bilowga ciyaartuna waxay beegsanaysay kala shaadhaynta ciyaaryahanada oo keliya. kadib waxau maamulay ciyaartu siiyey fursad kale, maxaa yeelay waxau haystaa 2 doorasho: inuu ilaabo abaalmarintiisa oo uu ku noqdo noloshiisa caadiga ahayd, ama inuu la ciyaaro Takirwa ciyaarta kaadhadhka mar kale. haddii uu guulaysto waxuu qaadan doonaa lacag lagu qiyaaso 2 milyan oo dollar. haddii uu guuldaraysto miyaa, halkan ayuu weli ka shaqaynayaa. waa uu ku waafaqay Kaichi ciyaarta. qaacida ciyaartuna markan waa sahal. Kaichi waxuu qaadanayaa 3 kaadh waxau muujinayaa addoon, labada kalena muwaadin. qofka la ciyaarayaana waxau haystaa 4 kaadh waxau muujinayaa boqor, 3 kalena muwaadin. ciyaartuna waa in boqorku maamulayo muwaadinkuna uu xukumayo addoonka, addoonkuna uu xukumayo boqorka. way bilaabmatay ciyaartii, waxay soo saareen warqadii muwaadinka. markii labaad Kaichi waxau soo saaray warqadii addoonka. haddii uu Takirwa soo saaro warqadda boqorka, waxaa guulaysanaya Kaichi. laakiin Takirwa wuu ogaa inuu Kaichi sidaas sameynayo. isagoo akhrisanaya calaamadaha wejigiisa, waxau soo saaray kaadhkii muwaadinka, waana guuldaraystay Kaichi wejigii koowaad. waxaana go'aansaday inuu xakameeyo calaamadaha wejigiisa wejigan ugu dambeeya. waxa ugu horreyntii soo saaray kaadhkii addoonka, balse Takirwa muu eegin calaamadaha wejigiisa, balse waxau eegayey saacadda gacantiisa. Kaichi waxau dareemay inuu guulaysanayo, laakiin waa uu guuldaraystay. markii ay u sii qaadayeen si uu uga shaqeeyo goobta, waxau isweydiiyey sababta aanu u guulaysan, maxaa yeelay ciyaartu waxay ahayd mid aad u fudud, kumanaanu dhicin wax isdhaafina. waxau Kaichi arkay dhaawac ku yaala garabkiisa, waxaana ogaaday in dhaawacu uu sheegayo qaraaca wadnihiisa. markii uu soo saaray kaadhka addoonkana, qaraaca wadnihiisa ayaa aad u sarreeyey. Takirwana waxau qaraaca kala socday saacadda. sababta aawadeed waxau doonay in aanu isdhiibin. waxa u tegay mid ka mid a maamulayaasha ciyaarta, taasoo cadow laha Takirwa, waxaanu ka dalbaday in ciyaarta lagu celiyo mar labaad. waxaanu uga warramay inuu Takirwa khiyaameynayay oo uu markan guulaysan doono hubaal. way ku waafaqday marwadii caawimadiisa bisharad inay 90% ay qaadanayso abaalmarintiisa. waa uu ku raacay Kaichi. sidoo kale maamulihii guudna waa uu ku raacay inuu siiyo fursad labaad. markii uu odaygii dhammeeyey hadalkii, waxau Kaichi madaxiisa ku qaraacay muraayadda si uu tashwiish ugu furo qaraaca wadnihiisa. markay ciyaartii bilaamatay, waxaa ka soo muuqday Takirwa calaamadaha cadhada, maxaa yeelay muu awoodin inuu akhriyo waraaqadihiisa. kaadhkii koowaad ay soo saareen waa kaadhka muwaadinka. kadib waxa uu soo saaray Kaichi kaadhkiisii labaad. waxa ogaaday Takirwa
in kaadhku leeyahay dhiig. waxaanu soo xasuustay in labada kalena uu ku duulay dhiiggii. waa kaadhka muwaadinka iyo kaadhka addoonka. haddii uu soo saaro kaadhka muwaadinka waxau ahaanayaa ammaan. sidaas ayaanu sameeyey. labadooduba waxay soo saareen kaadhkii muwaadinka. Kaichi waxa uu hadhay kaadh quriyaata. waxau Takirwa hubay inuu yahay kaadhka addoonka. Kaichi waxau soo saaray kaadhkii u marsanaa dhiiggu. Takirwa waa uu faraxsanaa, laakiin daqiiqadihii u dambeeyey waxau ogaaday inay tahay xeelad uu isticmaalayo. waxaanu soo saaray kaadhkii boqorka, laakiin si lama filaan ah Kaichi waxau soo saaray kaadhkii addoonka. waa uu xanaaqay Takirwa waxa dhacay dartii, mana fahmin siduu ku awooday inuu khiyaameeyo. ugu dambeyntii Kaichi waxau ku guulaystay abaalmarin ballaadhan. waxaanu iska guday deymihii. waxaanu siiyey gabadhii caawisay 90% abaalmarintiisa. waxaanu ku soo noqday noloshiisa caadiga ahayd. Oscar